xildhibaan hore Maxamed Ismaaciil Habban oo ka tirsanaa golihii hore ee deegaanka degmada Boorama oo maanta warfidyaanada kula hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka jawaabay hadal maalinta shalay ka soo yeeray afayeenka xisbiga xaakimka talada dalka ee Kulmiye uu sheegay dad laga soo xidhay deegaanka Saameel inay yihiin dad ajaaniba. xildhibaanku hadalkaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu tilmaamay maanta way taariikhdu tahay 10 Abriil kuna beegan sagaalka Ramadaan awalan dadka islaamka ama muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan la aaminsan Ramadaan kariim waxaan doonayaa inaan ka hadlo hadalkayga maanta aan soo fadhiistay shalay oo taariikhdu ahayd 9 waxa hadlay inaan la yiraahdo buuni oo afayeenka xisbiga Kulmiye ninkaas wuxuu sheegay wuxuu yiri awal hadalkiisa wuxuu ku bilaabay run baan sheegayaa oo Ramadaan run baan sheegayaa wuxuu ka hadlay shaqaaqa muxuu ka dhacday deegaanka boolka iyo ruqinta u dhaxaysa oo lagu dhaawacay sargaal ka tirsan saraakiisha booliska Soomaaliland awalan wixii sargaalka ku dhacay oo ka xunnahay deegaankaygu ka dhacay ilaahay uu boogadhayo aad iyo aad ugu xunnahay waxaan ilaahay u baryeynaa ilaahay caafimaad saraacan u siiyo isagaalkaygu wahaa isaga intaasaan oranayaa iyadoo isla tahay ninkaas wuxuu yidhi isagoo oo muxuu hadallo badan oo fara badan akhriyay ilakaas wuxuu yidhi muxuu dadka halkaa lagu soo qabtay oo 60 ku dhow oo naqaano ciday yihiin oo deegaanka iyaga oo hebel u naqaano cuqaashayda ku jirto oo xogayadkaygu ku jiro oo dhalinyartaydu ku jiraan oo macallimiintaydu ku jiraan oo cadaysanayna dadka iyaga yihiin wuxuu ku sheegay inay dadkaasi dad ajaaniba waxaan dhammaan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland ama ummadda muxuu dadka ay ka soo jeedno iyo cid kastoo iyo cidda ka soo jeedaba dadka xidhan inay ajaanib ahayn inay dadka iyaga yihiin shaqaqada meesha ka dhacdayna muxuu wixii lagu soo qabtay annagu cidii dambi leh muxuu dambi ka saari mayno dambi muxuu dambi kuma jirin oo hadii wixii lagu helo sharciga ku waajibiyay kala hori mayno laakiin waxaan ku sheegayaa dadkaas waxa loo soo qaraafay sida raafka wixii loo oran jiray ayaa loo soo raafay iyagoo oo tirada intaa leega xukuumadda ama dadka arrinta gacanta ku haya nooca raafka ka daayo oo nooca sharci muxuu dambi baaristu tahay haloo maro oo wixii dambi hadii dadku dambiga loo baaro yaa kolba meel ka haynin kolba meel lagu oodin sababta waxay tahay sharciga ay baalmarsan tahay anagu waxaan aqaan jurisdiction waxa la yiraahdaa goobta wax ka dhaceen baa dadka lagu baaraa cadaymaha maragga si loo helo xabsiga ugu dhowna waa lagu xiraa dambi baarista ugu dhoweed meesha muxuu taqaanina waa la geeyaa laakiin dad muxuu intoo meel xabsi mar lagu yahay xabsi kale loo gudbiyo xukuumadda waxaan leenahay qadiim muxuu ugu sarreeyay oo ugu hooseeya arrintaasi muxuu dhiga waa foojinaha loo yeesho taasi waa intaas inakaas runta sheegay wuxuu yiri dadkaasi wadanka kuma isku gelin waa ajaanib leeyna waa mushii muxuu inay ajaanib ay dadka ay yihiin waxa cad hebelkooda yalla yaqaanaa hadii dadka si la isku ablaableeyo inakaas oo wadaag ma yihiin qowlan ka soo wada jeednay deegaanka iyaga ma yaqaan waxa dhacayba loo dhaxeeyo waxa ku ajburay inuu anaga ajaanib lagu sheego ma naqaan inuu ka sasayo baan u malaynayaa isaga oo muxuu ku taagan tahay arrin heer caalami ah oo wax lagu sheegayo meel isku dahiran aan weeyno intaan u dhaafay ta kale inakaas maaha xeer ilaalin maaha dambi baara maaha garsooro xukun ridaya maaha afayeenkii xukuumadda maaha waxa uu hadlayay wasaaradda arrimaha gudaha maaha waxaasoo shaqadiisu afayeen xisbi baan anagu naqaanaa xisbiga dawladda hadii dadka isla loo eedeeyay muxuu ka raali tahay oo xukuumadda afkeeda ku matala hadii isla dadka loo eedeeyay ka raali tahay iyaga taayinaya xukuumadda waxa sheegi doonta qolada muxuu xisbiga uu matalo inakaasi wuxuu
أنببر وحلا يراها أيوه كسر توصي لما هو أقول له بيبي مرة كرا إنه حقيقة الشيء أنا هبوي أنا هبون ما دام أنا حبن دولتين وين كاسكت رسيها أنا أقول من دولتنا كل دائما لكن حقق عبنا عدة أوي هي خير في عم كسر كذا أبصر أرادنا كمان بحيسه وحمش يجينا كنت يقول وحنا بكسر كنا نبيه من كهت في إبد كي جانب هو شيء إن دكان كي أقول من الترنيمة محوها أنا أقول محتاج الترنيمة تحتوي الأسبوع مدايا أنا أقول بني لا محوها إيه جانب هو شيء دكان كي يقول ذاك إذا أنا أقول من وحنا محوها سقو سباري عض قابني عض بيربو محوها وفرينا تركي سوى سوتشيد أو حرمنا نقدر نحسه أنا يمين محوها ويصدره إلى إنك أقول له كنا عندي إنه كاني ويان وحاء أو قرب صغير أو هنا وشابلي كجواب استير ونكفل عيني فالعين ثانية أنا سوق بصلين وشعيب محمد كان شعيب بقى التلفزيون العالمي بولشو مقالة بورما.